filimkan waxa uu ku bilaabanaya darey hooyadiis ayadu u safraysa Shiinaha maadaama shaqadeeda xaggaas loo wareejiyay asagana waxa uu ka tagayaa saaxiibadiisa iyo deriskiisa garoonka ay aadayaan kadib markii uu saaxiibkiisa siiyay baalka lagu ciyaaro oo lugaha la saarto ugu dambeyntii darey iyo hooyadiisa waxa ay gaarayaan Shiinaha intii wadada ku sii jireen waxay arkayaan magaalo loo diyaariyay Olombikada in lagu qabto guriga ay tagi lahaayeen markii ay tageen naagtii degneed ayaa waxa ay siinaysaa furaha waxa ay ku dhaysaa hadii ay u baahantiin waxyaabo dheeraad ah waxa la hadli kartiin Master Han maxay luqadiisa Ingiriiska waa ay fiican tahay markay guriga gali maagtan waxa ay fiirinaysaa dhulka waxa ay ku arkaysaa jaakada wiilkeeda darey kadib markii uu iska siib waxa uu ku tuuray dhulka sida caadada ahayd ayadana hab ay siinaysaa waxa ay ku dhaysaa jooji mar dambe ha ku tuurin dharkaaga dhulka kadibna wiilkeedu waxa ay ka dalbanaysaa inuu hoos u degto si uu Master Han ugu waco si uu ugu hagaajiyo tubada uu deganaya sidii uu u raadinayo ugu dambeyntii waa uu helayaa waxa uu ku dhahayaa waxaan ahay dadka degan 305 waxaan u baahanaa in loo hagaajiyo tubada guriga bis waxa uu arkayaa Han oo badar cunayo waxa uu isdhahayaa markale u soo laabo kadibna darey waxa uu iska aadayaa beerta u dhaweyd gurigiisa meeshasna waxa uu ku baranayaa saaxiibo kadibna waxa uu aadayaa oday duq ah oo ciyaaraya kaligiisa dareyna waxa uu ku fikirayaa ninkan inuusan aqoonin ciyaarta waxa uu rajeynayaa inuu ka guuleysan doono bis hal mar waxa uu ka warhelayaa ninka inuu ku fiican yahay ciyaarta ninkan waxa uu ka dhalinayaa goolal badan asagana ma awoodaya xataa inuu hal gool dhaliyo darey waqtigiisa oo dhanna waxa uu bilaabayaa inuu fiiriyo gabar fadhisay beerta dhexdeeda oo meesha wax ku baranaysayne waxa uu go'aansanaya hal mar inuu u tago oo bartane ilaa markii dambe uu ka imaaday wiil kale waxaan uu cadaanays inuu wiilkaas xiriir kala dhaxay gabarta uu jeclaaday asagana waxa uu ku dhahayaa maxaa uu la hadlaysaa wiilka ma casharkaaga baratid wuu ku xanaaqayaa waxa uu qabsanaya waraaqada waxa uu ku tuurayaa dhulka dareyna waxa uu isku dayayaa inuu soo dhaxgalo laakiin se wiilka ayaa qabanaya waxa uu ku tuurayaa dhulka ayuu ka soo kacaya waxa uu isku dayayaa inuu garaaco bis darey ayaa noqonaya qofka la garaacay xataa ma awooda inuu taabto wiilka jirkiisa waa la garaacayaa ilaa markii dambe uu awoodi waayo xataa inuu lugihiisa ku istaago intaas kadibna waa ay ka tagayaan asagana waqti dambe ayuu ka kacayaa gurigiisa ayuuna aadayaa waa uu dhudhuumanaya waxa uuna galayaa qolkiisa walibana asagoo ooynaya oo xanuunsanaya si aysan hooyadiisa u arkin waxa la gaarayaa maalinkii xigay dareyna waxa ay u ahayd maalinkii koowaad uu aadaya iskuulka waxa uu isku dayayaa inuu dhaawacyada jirkiisa ku qariyo make-upka hooyadiisa kadibna waxa uu gashanayaa koofid si aysan hooyadiisa u arkin aysan u dareemin iskuulka ay gaarayaan maamuladana waa ay sugaysaa si ay u soo dhaweyso waxa ay ku dhaysaa darey waa mamnuuc koofi in lagu gashto iskuulka hooyadiisa ayaa ka siibaysa waxa ayna arkaysaa make-upka u marsan waxa ayna dareemaysaa in wejigiisa dhaawacay ay ku yaalaan waxa ayna weydiinaysaa qofka qaraacay si ay ehelkiisa ugu dacwooto asagana waxa uu ku dhahay anigoo socda ayaa bir ku dhacay sidaas ayaana kaaga qari ina aragtid darey iskuulka ayuu galayaa waxaan u imaanays gabartii uu ka helay waxa ayna ku dhahaysaa magacayga waxa la dhahaa waxa ayna ka raaligelinaysaa wixii uu ku sameeyay Jay asagana waxa uu weydiinayaa xiriirka kala dhaxeeya asaga iyo ayadana waxa ay ku dhaysaa anaka ma nihiin saaxiibo laakiin qoyskeen ayaa isku dhow iyo inay caruurnimadooda isbarteen way ka tagaysaa si uu ugu sii tababarata kamanka ilaa markii dambe maalinkaas uu iskuulka sidaas ku dhamaaday waxa uu ku laabanayaa darey gurigiisa waxa uu isku dayayaa inuu kartayga TV ka barto si uu u awoodo inuu garaaco Jay waxa uu arkaa Master Han oo albaabka taagan waxa uu u imaaday inuu hagaajiyo biyaha kulul waxa uu arkayaa asagoo u tababaranaya si qalad hooyadiis ayaa banaanka ka soo laabanaysa waxa ayna arkaysaa wiilkeeda oo sida caadada ahayd jaakada si qalad ah dhulka ugu tuuray way ku qaylinaysaa maxaa yeelay wax ka badan 100 jeer ayay dhehday ka qaad dhulka jaakadaada dhulka ayuu ka qaadayaa meel ayuuna surayaa waxa uu arkayaa inuu Han fiirsanayay darey iskuulka ayuu tagayaa maalinkii xigay waxa uu arkayaa Jay iyo saaxiibkiis inay daba socdaan waa uu ka fogaanayaa si aysan u garaacin marka waa uu ka cabsaday ilaa markii dambe uu ka gaaray saaxiibadiis meel qolka ay ku tababaranaysay waxa uu maqlayaa macalinkeeda oo ku dhahay waa laazim inaad sii tababartid xataa waqtiga fasaxa si kaman garaaceedu uu fiicnaado markii uu macalinka ka tagana meesha darey ayaa u tagay waxa uu ku dhahayaa garaacidaada waa ay fiican tahay waxa uu weydiinayaa sababta ay u tababaranayso ayadana waxa ay ku dhaysaa waxa rabaa inaan galmacadka muusikada lagu barto kadibna waa uu ka tagayaa waxa uu ka baxayaa masraxa bis hortiisa waxa uu ku arkayaa Jay oo taagan waxa uu ka qaadayaa boorsada dhulka ayuu ku dhufanayaa waxa uu ku dhahayaa ka fogo ayada hadii kale waxa kugu dhacay wixii kugu dhacay oo kale kadibna waa uu ka tagayaa markii uu guriga tagana hooyadiis ayuu soo raacayaa intii wadada ku sii socdeenna waxa ay arkayaan iskuul weyn oo lagu bartana kuufuga asagana waxa uu go'aansanaya inuu galo si uu u soo fiiriyo sida ay u tababaranayaan maxaa yeelay asaga waxa uu rabay inuu barto sida uu ku dili lahaa Jay kadibna waxa uu arkayaa koox kale oo tababaranaysa oo shicaarkooda uu ahay ha u naxariisanina hana u dhimrinina cadowgiina intuusan gelinna uu la hadlinna waxa uu arkayaa inuu Jay yahay mid kamid ah ardayda waxa uu ka laabanayaa hadalkiisa waxa uu aadayaa iskuulka banaankiisa Han gurigiisa hortiisa ay istaagayaan waxa ay rabtay hooyada inay weydiiso wiilkeeda
waxa uu ka cabsanayo asagana waxa uu ku dhahay aniga wadankan waa nacay waxaana rabaa inaan ku laabto wadankayga meesha ma jeceli hooyadan waxa ay ku dhahaysaa meeshan waa qasab inaan joogno wadan kale nooma banaano waana laazim inaad la qabsatid labadoodana kadibna waxa ay go'aansanayaan inay galaan gurigooda haanna waxa uu ahaa mid maqlaaya wax kasto maalinkii xigay ayaa la gaaraya dareyna waxa uu ardayda iskuulka u raacaya magaalada xaraamta ahayd maxay magaalada magacaas waxa loogu baxshay boqorkii ka tali jiray ayaa ka xarimay dadka inay soo galaan bis markii uu dhintay waxa ay noqotay meel ay dadka u soo dalxiis tagaan jay waxa uu isku dayay inuu dhibo darey inta dalxiiska lagu jiray ilaa markii dambe ay dib ugu laabteen iskuulkooda dareyna waxa uu go'aansaday inuu ka aargoosto wuu u soo dhawaanaya asagoo dhudhuumanaya waxa uuna ku tuuraya biyo wasaqaysan kadibna waa uu ka cararayaa ayaka dhanna waa ay soo bursanayaan asagana waxa uu isku dayayaa inuu ka carar ilaa markii dambe uu ka soo galay albaabka gadaale dhismaha uu degnaay bis asaga waxa uu arkay inay xiran tahay mana awooda inuu ka baxsado way qabanayaan waa ayna garaacayaan mana u naxariisanayaan jay asagoo rabo hal mar inuu ku dhufto inta awoodiisa ah waxaa gacanta ka qabanaya haan wuu kala tuurayaa waxa uuna ku dhahayaa qof kasta gurigiisa ku laabta intaa samaysan ayaa idinku filan haan waxa uu aadayaa darey si uu u soo kiciyo laakiinse jaag ayaa kusoo tuuraya darbo si fudud ayuu lugta ugu qabanaya laba kale ayaa fiir kusoo ridayso asagana labadooda ayuu iskugu banaynaya ayaka ayaan isdilayaan asaga wax uu samaynaya oo dhanna waxay ahayd inuu iska difaaca mana uusan garaacayninne dareyna waxa uu ahaa mid fiirsanaya waxa dhacaayo weliban asagoo dhulka yaalo oo xanuunsanayane ilaa markii dambe haan uu dhulka wada dhigay ayaka oo dhan darey ayuu soo kicinaya waxa uuna keenaya qolkiisa si dabka ugu daaweeyay dhaawacyada soo gaaray jirka darey markii haan uu dhammeeyeyna darey waxa uu dareemaya in jirkiisa uusan xanuun ka dareemaynin darey waxa uu weydiinaya sidee ku awooday inay carruurtaas oo dhan iska dhicisid waxa uuna ka dalbanaya inuu baro kuufuga si uu iskaga celiyo jaag haan waxa uu ku dhahaya kuufuga waa xirfad aqooneed oo difaac ah mana ahana dagaal iyo dhibaato dareyna waxa uu ku dhahaya sidaas ma ahan ayaka macalinkooda waxa uu baray inuusan dadka aysan u naxariisanin haan waxa uu kula talinaya in macalinkooda uu u tago uuna ku dacweeyo bis darey waxa uu ka baqaya in keligiisa uu u taga kadibna la garaaco waxa uuna ku dhahaya iraac haanna bilowgii hore waa uu ka diidaya kadib fikir dheer kadibna waa uu ka ogolaanaya inuu u raaco iskuulka kuufuga waxa uuna rabay inuu carruurta sida uu u tababarayo macalinka inuu soo arko uu jaagna ku dacweeyo markii ay u galaana waxay arkayaan macalinka oo garaacayo cunug yariis ah kadib markii uu awoodi waa inuu dilo wiil yariis ah markii uu ka guulaystay waxa uuna ku dhahaya ma ahan inaad ka guulaystaan oo keliya waa inaad garaacdaan cadowgiina oona nafta dhaafisaan xataa inaad ka labalabaysiin ma ahan markii uu gadaal fiiriyana waxa uu arkaya haan oo taagan jaagna waxa uu dhahaya haan waa qofkana garaacay haanna waxa uu u imaaday in tababaraha uu ka dalbaday in ardaydiisa ay mar damba taabanin darey 6 cunug inay hal cunug ku goobtaanna waa dulmi tababarali waxa uu ku dhahaya ardayda wada fadhiista jaag oo keliya ayaa istaagaya waxa uuna ku amraya inuu la dagaalo darey laakiinse haan ayaa diidaya waxa uuna ku dhahaya aniga meeshan uma imaanin dagaal waa uuna ka tagayaa laakiinse li ayaa waxa uu ku dhahaya ardaydeeda ayaa garaacday iskuulkeygana waa duleysatay marka waa inay dhibtaa ganaaxa bis haan waxa uu ku dhahaya darey haddeertaan qof lama dagaalamaayo waxaana noo balan ah markii uu furmo tartanka kuufuga saacadaas ayuuna li u ogolaanaya inay bixi karaan waxa uuna ku dhahayaa haddii aad kasoo qaybgeli weysin tartanka kuufuga waxaa ardaydeedu ku amraya inay dili karaan aysan u naxariisanina darey kadibna ardaydiisa oo dhan waxa uu ku amraya inaysan taaban karin darey inta laga gaarayo tartanka kuufuga darey iskuulka ayuu kasoo baxaya haan ayaa waxa uu ku dhahaya waxaan ku wadaa laba arinta koowaad oo farxadda lehna waxa ay tahay jaag mar dambe ku taaban doono midda kalena waxa ay tahay waxaa ka qaybgeli doontaa tartanka kuufuga waxaana la dagaalami doontaa ardaydaas oo dhan haddeertaana waxaa rabaa inaan ku baro kuufuga dhabta ah darey maalinkii labaad ayuu u imaanaya haan si uu u bilaabo tababarka kuufuga waxa koowaad uu darey sameeyeyna markii uu imaaday waxa ay ahayd jaakadiis inuu siibo oo dhulka ku tuurayne waxa uu ku dhahaya haan waxa uu imaaday inaad tababarto waxaana diyaar u ahay inaad barto kuufuga sidoo kalena ay u bilaaban tahay kuufuga uu yaqaanana xoogaa karatay ah kolofoota ayuu hortiisa ku dheelaya laakiinse haan madaninaya hadalkiisa waxa uuna ka dalbanaya inuu soo qaado jaakadiisa uu surana meel kadibna waxa uu ka dalbanaya inuu geshto uu siibana kadibna uu tuuro uu soo qabsadana uu suro maalinka oo dhanna inuu sidaas sameeyo habeenkii markii la gaarana darey waxa uu ku soo laabanaya gurigiisa asagoo daalan oo wax soo baraninne laakiinse jaakadiisa ayuu suraya katabaanka hooyadiisna waa ay la yaabaysaa maxayla waa markii koowaad uu suraayo xaaladaas ayuuna ku jirayaa maalin kasta markii uu soo kaco waa uu samaynayaa tababarka ayuu u sii wadayaa master haan ilaa markii dambe ee ka imaatay hooyadiisa ayna ka dalbatay in wiilkeeda ay u wadi karta bandhig lagu qabanayo magaalada sidoo kalena ay haan u keentay tikid calshaan si uu u raaco waxa ayna ku dhahaysaa managa diidi kartid midaas dhammaantood waxa ay aadayaan bandhiga la qabanayay mayna bandhiga ay joogtay waxa ayna la kulmaysaa darey waxa ayna u ballanqaadaysaa inay kasoo qaybgeli doonto tartanka kuufuga uu geli doono sidoo kalena asagana uu kasoo qaybgeli doono tartanka masraxiyada ee geli doonto sidaas ayayna isku waafaqayaan labadooda darey maalinkii xigay waxa uu aadayaa guriga haan waxa uuna u tagayaa asagoo hagaajinaya gaarigiisa haana waxa uu ku dhahayaa guriga sidee kusoo gashay anigoo weliba ku idmin inaad soo geshid waxa uuna ku dhahayaa banaanka tag aniga ayaa ku ogolaanaya kadib soo gal kadibna waa uu soo gelaya waxa uuna bilaabaya inuu
inuu jaakadiisa dhulka dhiga kadibna uu ka soo qaado uu suro oo gashtana ilaa markii dambe sabarka uu ka dhamaaday Darey waxa uuna dhahayaa waan bartay waxaana rabaa inaan barto kufuuga maxaa yeelay kun jeer ayaa suray dharkayga meel jaakadiisa ayuu qaadanayaa wax uuna rabay inuu aado gurigiisa Han ayaa u wacay wax uuna ku dhahayaa horteeda istaag jaakada ayuu ka qaadayaa waa uuna ka tuurayaa wax uuna bilaabayaa inuu baro in gacantiisa xoogaa ay awoodeysatay kadib markii uu tababarka sameynay muddo dheer taasna waxay ahayd mid looga baahan yahay kufuuga dhexdiisa kadibna waxa uu bilaabay inuu ku tababar sida uu lugihiisa ku dhaqaajin lahaa hal mar ayuu ka dalbanaya inuu dhulka ka soo qaado jaakada isla markaas ayuuna darbo ku soo ridayaa asagana gacanta ayuu iskaga dhigaa Dareyna waxa uu fahmayaa inuu asaga sidaas ku baranayo xarakaadka muhiimka ah waliban asagoo dareemaynin uuna ku baranay waxyaabo basiid ah oo maalin kasta uu sameyn karay kufuugana uu ku jiro wax kasta oo la qabanayo maalin kasta qofkii uu isticmaalana sida saxan ayaana dareemaya qiimihiisa Han waxa uu u kaxeynaya meeshii aabiis uu ku tababari jiray markii uu yaraay si wadajir ah ayay u safrayaan ilaa markii dambe ay ka gaareen Hanna waxa uu ku dhahayaa waa inaan tagnaa meesha ugu sareysa si aan u soo cabno biyaha meeshaas yaalo waxay bilaabayaan inay jaranjarta fuulaan ilaa markii dambe ay ka gaareen meesha ugu sareysay Darey hortiisa waxa uu ku arkaa naag hortaaga mas oo waliban madaxeeda nuuxinaysa waliban asagoo qaniineynin waxay fiirinaysa indhihiisa waliban madaxeeda ayadoo nuuxinaysa waa uuna ka daba nuuxinayay Darey iyo Han way soconayaan ilaa markii dambe ay ka gaareen meesha ay biyaha yaalaan Darey biyaha ayuu cabayaa kadibna waxa uu weydiinaya sidee naagta ku awooday inay madaxeeda nuuxiso maskana ka daba nuuxsado asagana waxa uu ku dhahayaa maska waayo qofka ka daba deysana ayada ayaana xukumaysay maxaa yeelay waxa ay awooday in maska ay leeleexisay ay xukuntane Han waxa uu bilaabaya inuu Darey ku tababaro meeshii uu ku tababarin jiray markii uu yaraay kadib maalin dheer oo tababar ahna waxa uu ku soo laabanayaa Darey gurigiisa maskii uu soo dhex arkayna madaxiisa ayuu ku dhex wareegsanaya waa uuna la yaabanay ugu dambeyntiina buug ayuu ku sawirayaa maska waxa uuna bilaabayaa tababarkiisa inuu sii wato Hanna waxa uu barayaa noocyada kala duwan uu leeyahay kufuuga Dareyna waxa uu ku tababaranayaa meel kasta uu tago ilaa markii dambe Han uu ku dhahay bari waxa tahay fasax maxaa yeelay tababarka badan waxa laga yaabaa inuu dhibaato ku geysto malkii xigay waxa uu tagayaa iskuulka waxa uu ogaanayaa saaxiibadiis may bandhigeed inuu yahay bari mayna ayadoo naxsan ay istaagsaneed waxa ayna ka baqaysay inay guul dareysato Dareyna niyadda ayuu dhisayaa waxa uu ku dhahayaa bari qaad hadii kale waa ku waalanaysaa maxaa yeelay tababarka badan dhibaato ayuu keeni karaa waana sida uu u sheegay Han labadoodan iskuulka ay ka baxayaan ayagoo cararayaan waxa ayna wada qaadanayaan waqti fiican waxayna ahaayeen kuwa faraxsan ilaa markii dambe aabaheed uu soo wacay gabarta waxa uu ku dhahayaa bandhigaaga waa la soo hormariyay waxa uuna dhici doonaa hal saac kadib meeshii joogta ay ugu imaanaya waxa uuna ku kaxinayaa gaarigiisa si dhaqsi leh si uu u geeyo iskuulka Dareyna waa uu ka soo daba cararaya ilaa markii dambe uu ka soo gaaray iskuulka si uu u dhiirigeliyo ayada maxaa yeelay balan ayuu ka qaaday meesha ayuu galayaa waa uuna fadhiisanayaa markii ay dhameysan asaga kaligiis ayaa u sacbinaya kadibna aabaheed waxa uu ka dalbanaya inaysan mar dambe la hadlin wiilkaas waxa uuna ku dhahayaa u tag waxaana ku dhahdaa mar dambe ma noqon karna saaxiibo hadalka aabaheed ayay fulinaysaa welibana ayadoo dhibsanayso Dareyna waa uu ka murugoonayaa midaas bedelkii uu aadi lahayna gurigiisa waxa uu aadayaa guriga Han waxa uu arkaya Han oo xanaaqsan oo jajabinaya gaarigii uu hagaajinayay maalmahaas oo dhan waxa uu bilaabaya inuu ka celiyo uu dajiyene waraaqada dul saarneed ayuu qabanaya waxa uuna arkayaa inay ku dhinteen gaarigan cunug iyo hooyadiisa waana Han qoyskiisa waxa ayna shil ku galeen gaarigan sanado badan ka hor Hanna waxa uu bilaabaya inuu u sheekeeyo maanta kale waxaan saarnay gaarigan waxaana waday qoyskayga ilaa markii dambe meel sare ka soo gaaray roob xoogan ayaana da'ay naagtayda ayaana isdagaalnay ilaa markii dambe xanaaqa uu iga tarabatayna aan awoodi waa inaan kontaroolo gaariga aan ka galayna shil sanad kastana uu hagaajiyay gaariga markii la gaarina waqtigii ay shilka galeenna uu jajabiyo waxa uuna dareemaa dembi iyo murugo waa uuna ooyaa markaas ilaa markii dambe Darey uu ka soo qaatay ushi uu ku tababarayay Hanna waa uu qabsanaya gaariga ayuuna ka soo dhex saarayaa maalinkii xigayna darbiga shiinaha ee dheer ayay wada aadayaan si wadajir ah Darey ayuuna meeshaas ku tababaraya waxa uuna dareemayaa xirfadiisa kufuuga inay soo ficnaatay xoogaa mayna waxay ahayd mid ka cabsanaysa Darey inay la hadasho maxayl waxa ay ka baqaysay in aabaheed uu ciqaabo maalin kastana asaga ayaa soo doonay si aysan waqti ugu helin ay kula hadashana Darey maalin Darey waxa uu tagayaa hoolkii ay ku ciyaari lahaayeen kufuuga Hanna waxa uu ku dhahayaa muhiim ah inaad guuleysatid ama aad guuldareysatid muhiimadana waxa ay tahay dadka ka soo qaybgalayaasha inay ka helaan dhaqankaaga ayna ku ixtiraamaan maalinkaas kadibna waxa uu hadiyad ahaan u siinaya dharka kufuuga Dareyna waa uu u mahad celinayaa waxa uuna ku dhahayaa waxa tahay saaxiibka ugu fiican ee soo maray hab ayuuna siinayaa kadibna waxa uu ka dalbanaya inuu ku caawiyo hadalka uu ku dhihi lahaa may aabaheeda si ayada ay ugu soo qayb gasho kulanka kufuuga intaas kadibna Darey waxa uu tagayaa guriga may kadib markii uu soo akhriyay hadalkii uu u soo qoray Han waxa uu ku dhahayaa aabaheed welibana asagoo la taagan ayada waa saaxiibadeeda qaaliga ah anigana waxaan u noqon doonaa saaxiibka ugu fiican waana haddii aad u ogolaatay inay ka soo qayb gasho tartanka kufuuga aabahana gabartiisa wuu u ogolaanaya inay tagtay ay soo daawataan tartanka uu geli doono Darey waxaa la gaarayaa waqtigii ciyaarta ay bilaabo lahayd laakiin Han muusan aqoonin xeerarka u yaala ciyaarta Han waxa uu ku dhahayaa haddii ay heshid 2 dhibic waa guuleysatay
guuleysanaysaa muhiimadana waxa ay tahay laba mar oo kaliya inaad qofka garaacdid darey qofka koowaad ayuu u bixi maagaa laakiinse waa uu ka cararaya waa uuna ka baxaya meesha Albitrana waxa uu ku dhahayaa marka koowaad waayo haddii mar kale aad ka baxdidna waxa weyn doontaa hal dhibic darey ciyaarta ayuu sii wadanaya kadib markii uu la qabsadayna waxa uu ku guuleysanaya ciyaartii koowaad ciyaartana waa ay sii soconaysaa Jackna tartamayaasha kale waxa uu la dagaalamay si xun waxa uu dilay qofka ka soo horjeed intaysan jirkiisa u taabanin waana sida uu u tababaray macalinkiisa darey ugu dambeyntii waa uu soo baxay waxa uu noqonayaa dadka ugu sareeyo waxa uu la dagaalamaya saaxiibada Jack mid kamid ah waa uu ka guuleysanaya waxa uu u gudbayaa finaal uu eke May iyo ciideeda iyo hooyadiisana waxa ay ahaayeen kuwa dhiirigelinaya asaga hana waxa uu ku dhahay qaybtan si aad u guuleysatid waa inaad heshaa 3 dhibcood ugu horeyntii Jack ayaa dheelay waxa uu awoodaya inuu ku guuleysto qof kale tartamayay waxa uu u gudbayaa finaalka dareyna waxa uu ku soo aaday qof kale oo kamid ah kooxda Jack bistow barali waxa uu ka dalbanaya inuu lugta ka jabiyo si uusan u guuleysanin wiilkiina waxa uu awoodaya lugta inuu ku dhufto darey uuna ka jabiyo taasna waxa ay sabab u noqonaysaa in wiilka ciyaarta laga saar maadaama uu dheelay ciyaar sharci dara ah dareyna sidaas ayuu finaalka ugu soo baxaya welibana lugtiisa ayadoo jab uu ka darey dhakhtar ayaa loola cararaya waxa uu dhahayaa dhakhtarka ma ahan inuu wiilkan ka qayb galay ciyaarta bis darey waxa uu ka dalbanaya han inuu u sameeyo dabkii uu sameyn jiray si uu u awoodo inuu istaagi karo oo kaliya asagana uu adkeysan doono xanuunka uuna dhameystiran doono ciyaarta hana waxa uu ku dhahayaa adiga maxaa u dagaalamaysaa inta ka badan maxay dadka waa tustay inaad tahay qof awood badan dareyna waxa uu ku dhahayaa ilaa hadarta aniga Jack waa ka cabsanaya marka waxa rabaa inaan jabiyo cabsidaas inta cumrigay inta ka dhiman aan ahaan lahay qof cabsi badan hana hadalkiisa ayuu maqlaya waxa uu u sameeyay dabkii uu sameey jiray oo xanuunka baabi'inayay li waxa uu ku jejeesay han kadib markii uu imaan waayay darey waxa uu ku fikiraa inuu asaga ku guuleysan doono koobka bis darey ayaa mar kale ku soo laabanaya garoonka ciyaartii u dhaxaysay darey iyo Jack ayaana bilaabanayso waan ciyaartii ugu dambeysay oo finaalka ahayd darey waxa uu iska difaacay darbooyinkii ugu badnaa ee lagu soo riday ilaa markii dambe Jack uu la helay darbo uu ku tuurayna banaanka sidaasna uu ku helay hal dhibic dareyna waxa uu awoodaya wareegii labaad inuu si dhaqsi leh ku soo ceshto hal dhibic sidoo kalena waxa uu awoodaya inuu hal dhibic ka sara maro natiijadana waxa ay noqonaysaa 2 dhibic oo darey leeyahay iyo Jack hal dhibic uu leeyahay saacadaasna li waxa uu ka dalbanaya Jack inuu u imaado waxa uu ku dhahayaa lugta ka jabi Jack soo mar dambe u istaaginba Jackna saacadaas waxa uu bilaabaya inuu lugtiisa weydaysto oo kaliya wada sharciyeysan ayuuna lugta ugu dhufanaya dareyna waa uu xanuunsanaya sidaas ayuuna ku soo qabanaya waxa ay noqonayaan barbardhac qofkii helana hal dhibic waxa uu noqonayaa qofka guuleystay dareyna waa uu istaagaya weliban asagoo ka baqaa in ciyaarta laga saaro liina waa uu la yaabaya kadib markuu arkay darey oo awoodi kara inuu istaago waxa uu u istaagaya darey sida ay u istaagaysa naagtii tababaraysay maska oo kale Jangi ayuuna u fiirinaya sida ay u fiirinaysa maska oo kale si uu xukumo uu u ogaado meesha uu ka soo weerar rabo markii ugu horeysay uu Jack soo weerarayna waxa uu awoodaya inuu u gambiyo kadibna waxa uu dheelaya kalfooto waa uu dilayaa sidaas ayuuna ugu guuleysanaya waxa uu helayaa dhibicdii saddexaad dadkoo dhanna waxa ay bilaabayaan inay u sacbiyaan ayna ku dhiirigeliyaan midaas Jack ayaa qabsanaya koobka waxa uu gacantiisa ku siinaya darey weliban asagoo ixtiraamayo ardaydii oo dhan ayaana salaan u saarayso darey waxa uu ku guuleystay koobka kadib markii macalinkiisa ixtiraamka badnaa uu baray muuqaalkan waxaa qoray Kabtan Maajid waxaan codeeyay Cabdilxaliim Cali waana aniga waxa habeeyay oo dhidgareeyeen isla Kabtan Maajid haddii aad ka heshay muuqaalkan ha iloobin inaad like saartid kuna soo birtidna YouTube-keena khulaasada filimada si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ah soo dhigeeno filmkana waxa la lahaa Karate Kid waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalada soo socda maca salaama